إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. walaalyaal kelmadani waa qeybtii labaad aan uga hadlaynay itaqi illaha xaytama kunt, ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baq meel alla meeshaad joogto. shalay waxaan ka soo hadalnay sifaadka ayaan ka soo hadalnay mu'miniintu ay leeyihiin ayaan ka soo hadalnay. sifaadka waxaan u sheegnay ilaahay subxaanahu wa tacaala mu'miniintiisa in calaamado gooniya uu siiyey, laakiin dadku waxaan sheegnay inay dunidii ku mashquuleen, ay dunidii ay arkeen ay ka fogaadeen cabsidii alla subxaanahu jala wacala. waxaan tilmaanay dadka mu'miniinta dhabta ah waa kuwa awaamirta alla subxaanahu wa tacaala ilzaama oo joogteeya. dadka mu'miniinta ah waa kuwa masaajidka alla subxaanahu wa tacaala laga helo. dadka mu'miniinta ah waa kuwa isu naxariista. dadka mu'miniinta waa kuwa rifqo iyo naxariis iyo maxabo dhexdooda ay taalo, sidii nabigeenaba u tilmaamay, allana uu ku ammaanay nabigana calayhi salaatu wasalaam. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr faida cazamta fatawakal cala allah ina allaha yuxibu lmutawakiliin. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku yidhi nabigiisa calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi raxmad iyo naxariis annaga aan ku siinay darteed ayaad kuwan ugu jilicsanaatay. marka lasoo galay dhulka gaalada ah, labadii isqabtay colaad ayaa kala dhex taala, ilmihii iyo waalidkoodina way isku xumaadeen. cabsidii alle subxaanahu wa tacaala iyo diintii markii loo laaban waayey, reerkii waa uu burburay. waxaa aada u tiro batay, furiinka ayaa aada u batay, iyo kuwa xaaraanta cuna ayaa aada u batay. saa darteed waxaa loo baahan yahay inaan usoo laabano ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa meel alle meeshaan joogno. maxay kuu taraysaa markaad jamciso dabaqyo aad ka dhisto? maxay kuu taraysaa markay guriga taallo xajkii aanad ka aadi karayn? maxay kuu taraysaa markaa caruurtaada xaaraanta aad siiso? xadiid abi hurayra laga wariyey radi allahu tacaala canhu, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, jir weliba oo xaaraanta ku barbaaraa naarta ayuu mudan yahay, naarta ayaa ku habboon. bukhaari ayaa xadiidka isagaa soo saara. waxaad ogaanaysaa cabsida alle subxaanahu wa tacaala waxay ku tusinaysaa qofka inuu cabsado oo alla dhab ugu baqo. waxay tusinaysaa inuu jidka wanaagsan uu maro oo ma arkaysaa xaaraantii uu ka fogaado, xalaashii uu cuno, wanaagii uu aado. saasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam alla ku ammaanay, fabima raxmatin min allahi linta lahum. naxariis iyo wanaag alla subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey darteed ayaad kuwan ugu jilacsanaatay. walow kunta fadan galiida alqalb, haddii aad ahaani lahayd qof fallooci ah ama kariwaayi ah ama dhib badan haddaad ahaan lahayd, agagaarkaada kuwaani mayn fariisateen, agagaarkaada ma imaateen oo ma fariisateen, bal way kaa kala carari lahaayeen. saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabiga ayay jeclaayeen, agagaarkiisa ayay fariisan jireen. laakiin ilaahi subxaana wa tacaala midda ayuu ku tilmaamay, walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum, iska cafi. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku sheegayaa cafintu inay aada u wanaagsan tahay, in dadka muslimiinta ay iscafiyaan. waxaad arkaysaa kaarkiisa ayaan gubaya, waxaad arkaysaa aniga hebel isma salaano, dersiga iyo muxaadarada waxaan u nacay hebel dartii, ma imaan karaayo, masjidka hebel ayaa jooga. waxay taagan tahay masaajidka alle subxaanahu wa tacaala qabaa'id iyo kooxyo in loo kala qaato. oo haddii dib laisu weydiiyo london kaliya kuwa ku furan, iyo haddii dib laisu weydiiyo kuwa meelahan furan, agaarkeena waxaa ah bosni ayay leedahay, albani ayuu furtay, soomaali masjid soomaali gooni ayuu furtay, turkida waa turki kaliya. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ummadana wuxuu ka dhigay hal ummad ayuu ka dhigay, sida qur-aanka alle subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay. jinsidaha iyo ma arkaysaa dadka aadka u dhexgalay inay dadka muslimiinta ah kala qaadaan oo ay kala furfuraan oo manhajkii salafu saalix ka leexiyaan, waxay keeneen group waliba inay meel inta furtaan ay micnihii ayagu isku nacladeeyaan, lagana fogaado manhaju salafu saalix.
waxaad ogaanaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin micnihii alla subxaanahu watacaala ka baqa. cabsida alla subxaanahu watacaala ayaa korkiisa ku jirtay. xadiidkan nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga wariyay caaisha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala ayuu xusi jiray fii kulli axyaani, waqtigiisao dhan ba nabiga calayhi salaatu wasalaam dikrullahi subxaanahu watacaala ayuu ku jiri jiray. cabsida alla subxaanahu watacaala ayuu ku sugnaa. markii saddexdii saxaabi ay gurigiisii yimaadeen oo ay weydiiyeen cibaadadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, kaanahum taqaaluuha ayagooba yaraysanaya, waxay weydiiyeen cibaadadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. markii loo sheegay oo lagu yidhi cibaadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sida iyo sida iyo sida, waxay yidhaahdeen waabi yaraysano, waxay yidhaahdeen go-aan ayay gaareen, nin weliba arrin ayuu micnihii dhinac u aaday. mid ayaga ka mid ah wuxuu yidhi aniga sanadkao dhan waa aan soomi doona 100 son ayaa la yidhaahdaa. ka labaadna wuxuu yidhi aniga dumarkao dhan ma guursan doono, sababta ma rabo in caruur ayga aqayliyaan. kan kalena wuxuu yidhi habeenkii o dhan salaatuleil ayaan u taagnaani doonaa. nabiga markii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallahi aniga waxaan ahay ninka alla subxaanahu watacaala xaggiisa idinkuga cabsida badan, alla subxaanahu watacaala xaggiisa qofka idinkuga cabsida badan. laakiin soonka waan soomaya, waana furaya, dumarkana waan guursanaya, markaysa soonka waan habeenkiina salaatuleilka waan dukanaya. faman raqiba can sunnatii falaysa minii. nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waxaa alla subxaanahu watacaala uu ku ammaanay wabilasxaari hum yastakfiruun. habeenkii oo dhan marka ay soo jeedaan oo alla subxaanahu watacaala uu tilmaamay tatajaafa junuubuhum cani lmadaajic, ilaahay subxaanahu watacaala ayay quudarayn jireen, dhinacoodii ayaa dhulka diiday, way soo taagnaani jireen habeenkii o dhan salaatuleil ayay u tagnaani jireen, ilaa alla subxaanahu watacaala mar damban aayadda suurta daariyaadka ku yidhi wabilasxaari hum yastakfiruun. waa beriga markii la gaarana alla subxaanahu watacaala ayay xusi jireen. annaga buskudka ayaan isu kicina iyo doolshada, caanaha habeenka waa laysu soo kiciyaa. guryihii nimcooyin ayaa alla subxaanahu watacaala uu buuxiyey, wax waliba gurigii waa eeyala, laakiin waxaa la waayey nicmadii alla subxaanahu watacaala ayaa laga tegey. waxaa la waayey ladat lcibaada, cibaadada midda ugu wanaagsaneed in masaajidka lagu xiraado, in masaajidka la tago, la weysaysto, guriga laga weysaysto, 5 salaadood lagu dukado salaadaha, amaba ninkii micnihii shaqaynaya meesha camalka markii la gaaray xilligii markii la gaaro in qofka muslimka ah uu dukado meeshii uu ku dukado. wuxuu rabaa salaadihii inuu jamciyo sida rawaafid oo kale. 3 masaladood kama baxaan. wuxuu ku weydiinaya sheekh waxaaskayga dalqada ayaan u dhameeyey, 3dii waa iga dhamaatay, waa baa'inat lkubra, 3 jeer ayaan furay, mar ayaan furay, 2 ayaan furay, 3 ayaan furay, wixii way dhamaadeen. wuxuu rabaa rukhus inuu raadiyo si isu daba wareego. waxa la yidhaahda muxallal, qof micnihii inuu raadiyo oo markaysa u baneeya hal habeen inuu usoo guursado, ama wuxuu raadinaya rukhas. adiga ayuu ku imaan, masale ayuu ku weydin, mid kale ayuu u tegi, masale kale ayuu weydin, mid kale ayuu u tegi, masale ayuu weydin, ilaa marka dambe la yidhi culamada soomaalida oo yurub joogtay aanan u tegin, sababtoo aan waa isnaqaanaayo xaasaskii hadday micnihii u tagaan ama naga haddaan u tagno waxaa laga yaaba arrintu inay yidhahdaan xaaska u laaban maysid. 3 ayuu xaaska ku furay, ruqus ayuu raadinaya. saa darteed nimanka markii loo tago aan ayago jinsiyada aanan la ahayn oo arrinta loo sheego la yidhahdo sheekhu anigu waan xanuunsanaa, markaana hadlayna caradu halkaas ay marayso, dhunta ay gooneed, sheekhu ma fahmi karaayo. laakiin annaga markuu noo yimaado oo aan xaqa u sheegna aan dhahna ilaahay subxaanahu watacaala ka baq, 3 jeer haddaad furtay oad og tahay gabadhana waa baa'inat lkubra, micnihii way kaaga dhamaatay, ilaa nin kale uu soo guurso oo asaga uu iska furo, kuma balaan inaad guursato. wuxuu ku leeyahay sheekhi naagta ayuu ii diiday, sheekhi xaaska ayuu iga ceeriyey, ma raba inay islaanta u laabto, wuxuu rabaa xaaraan iyo bakti inuu kula joogo. ilaahay subxaanahu watacaala ka baq, ogow alla subxaanahu watacaala inaad la kulmayso maalin arrinta ayda aad dul wareegayso, ruqus aad raadinayso. ruqusta ibnu taymiya raxmatullahi caleyhi markuu tilmaamayo wuxuu yidhi dadka ruqusta diinta raadiya micnihii zandiiqay noqdaan uu yidhi. dadka ayaga oo raba inay micnihii raadiyaan rukhasu diin kale inay raadiyaan oo ay ku noolaadaan been iyo waxaan jirin inay ku noolaadaan. xaaraanti ayaa guryihii laga buuxiyey. qofkii muslimka waa uu ku faanaya maalinba guri ayuu soo dhisaa. markii soomaaliya la tago oo kale aan soo aragnay hadda xilli yar banigoo moog, dadka waxay ku leeyihiin intaasoo sannadood ayaad yurub ku maqnayd, intaasoo sannadood ayaad meeshii joogtay, dadka reerahoodo dhan way geeyeen, carruurtiio dhan waa la geeyey, walaalihiisoo dhan waa u kaxeeyey, intaasoo guri ayuu dhistay. bilaahi calayk, qof halkaa meeshaa joogayo la ogyahay sharka lacagta uu qaato haddii uu shaqeeyo ama xaaskii ay shaqayso, siday ku suurtagalaysaa intaasoo hanti ah in meesha lagu sameeyo haddaanaan rabi iyo balaayo la daldalan? ilaahay subxaana watacaala ka baqa. qofka muslimkaa marka runta loo sheego waa u caroodaa, laakiin annagu runta ayaan u sheegaynaa, nasiix ayay u tahay. waxaa saasoo kale nabigeena alla subxaanahu watacaala uu ku ammaanay naxariista
iyo wanaaga iyo khayrka uu samayn jiray allah subxaanahu watacaala waa uu ku ammaanay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam. culimmadan waxaa looga baahan yahay annagu inaan dadka ka soo saarno daa'iratu lkufri, gaalnimada inaan ka soo saarno, laakiin ma aha inaan gaalnimada u celinno, ma aha inaan gaalaysiino, ma aha inaan riddo ka wada dhigno, waa inaan u naseexayno oo diinta islaamka aan u sheegno. nabigana calayhi salaatu wasalaam aayadda markay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin, ilaahay subxaanahu watacaala u istaaga adinkoo aamusan. aayadda markay soo degtay nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaadu marka lagu jiro qof waliba qofka dhinaciisa jooga inuu la hadli jiray, qof waliba qofka la jooga ayuu akhbaarta ka qaadan jiray. aayadda markay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin, waxaa la faray inay ilaahay u istaagaan ayagoo aamusan oo aan hadlaynin, ayuu alla subxaanahu watacaala micnihii nabigiisa u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. alla subxaanahu watacaala wuxuu yihi waquumuu lilaahi qaanitiin. meeshaani waxaa jooga nin saxaabi jaliil ah oo laakiin islaamkiisa uu cusub yahay, mucaawiya ibn alxikam asulami radia allahu tacaala canhu ayaa micnihii waxaa catisay nin salaadii ku jira ayaa micnihii hindhisay. markii uu hindhisay ninkii garabkiisii markii uu hindhisay ninkan wuxuu yaqaanaa haddii qof uu hindhiso alxamdu lilah uu yidhaahdo yarxamaka allah inuu yidhaahdo, ilaa waa xadiidu lcahd, islaamkiisi ayaa dhow. waxaa dhacday ninkii markii uu hindhisay saxaabigii ninkii garabkiisa joogin intaa keliya uu fahmayo islaamkiisu cusub yahay, yarxamaka allah ayuu yidhi, isagii ayaa u jawaabay. markaasuu wuxuu leeyay faramaani annaasu biabsaarihim, dadkii ayaa indhahooda micnihii igu soo taagay oo noocun maa si ayaa micnihii lay dareensiiyey in arrintu aysan banaanin. markaasuu mar kale ku celinaya wuxuu leeyahay hooyaday iyo aabbahay hal idinku furtee maxaad iisoo fiirinaysaan? markaasaa wuxuu leeyahay waxay garaaceen yacni jilbahoodii ayay garaaceen oo sidaa u garaaceen si ay ii dareensiiyaan inaysan banaanin. markaasuu hadal labaad kusii dhawaaqay. markii salaaddii ay dhamaatay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi mucaawiya salaadan loogama talagelin wax hadal ah, waynamaa waxaa looga talagalay tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir keliya ayaa looga talagalay. wuxuu leeyahay wallahi maa kaharanii walaa shatamanii walaa darabanii, maya caynin maniya aflagaadayn, dhibni ima geysan, wa inamaa qaala lii wuxuu igu yidhi mucaawiya salaada gudaheeda markaad ku jirto waxaa looga talagalay oo keliya tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid ayaa looga talagalay, wax kale kuma banaana. mucallim ayuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam. ninkii isku dayay isaga inuu dilo geed hoostiisa isagoo jiifa qaatay seeftiisii qaatay, uu kusoo kacay isagoo seeftiisii gacanta lagu haysto, ayaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninka ayaa wuxuu micnihii qaatay seefta. nabigu markuu arkay calayhi salaatu wasalaam sida ayuu u fiiriyey. ninkii wuxuu yidhi yaa iga kaa celinaya, ila seeftiisiiyuu gacanta ku haystaa, seeftii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu gacanta ku haystaa. markaasuu wuxuu yidhi yaa iga kaa celinaya muxamedow. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaah subxaanahu watacaala yaa iga kaa celinaya. markaasaa seeftii ka dhacday. nabigu waa u qaatay markiisa calayhi salaatu wasalaam, wuxuu ku yidhi adiga hadda yaa iga kaa celinaya. ninkii ayaa hadal soo celiyo wuxuu yidhi muxamedow waxaad naqataa nin wax qaata kii ugu wanaagsanaa. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam islaam uu yidhi. markaasuu yidhi ma islaamaayo, laakiin waxaan ballan qaadayaa inaanan soo raacin qof adiga micnihii kula dagaalayo, inaanan soo raacin. markii u laabtay ninkaa isaga waati u lahaa ji'tu canii, waxaan ka yimid cani khayri nnaas, ninka dadka ugu khayrka badan xaggiisa ayaan ka yimid. haweenaydii nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu safarka ka soo laabtay saxaabadii biila-aanta ku dhacday. saxaabada biila-aanta ku dhacday nabiga saxaabadiisa ayuu diray wuxuu yidhi ordaha biyo noo soo raadiya. haweenay micnihii rati u raran yahay oo saxarihii dhex socota ayaa la arkoo la qabtay. waxaa lagu yidhi biyo noo sheeg meelay biyo ku dan. waxay tihi cahdii anigii xilligaan ogaa biyahu waxay ahaayeen meel habeen iyo maalin loo socdo. xadiidka bukhaariga ayuu ku jira isagana. markaasu waxay yidhahdeen soo bax rasuulka ayaan kuu geynaynaa. way soo kaxeeyeen nabigaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam. haweenaydii markii meesha la keenay waxaa laga qaatay markaysa hal dhiil ayaa laga qaatay ama weel biyo ku jireena laga qaatay. weelkii ayaa saxaabadii oo dhinacbeen, weelashoodii ayay ka buuxsadeen. kuwii janaabada ku dhacday ayaa ka qabaystay, weelashoodina way buuxsadeen. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haweeneydan weelkii la siiyey. markaasaa wax yarna loo aruuriyo oo la saaray oo la siiyey. wax yaraa loo aruuriyo laisugu daray. markaasaa haweeneydii waxaa la yidhi orod qaado iska tag. way tagto reerkeedii ayay aaday. markaasaa waxay tihi wallahan ku dhaartay labadan buur dhexdooda ninka ugu sixirka badnaa ayaan maanta soo arkay tiri. marka yani nabigeena calayhi salaatu wasalaam ma dhicin, waxba kama qaadan, waxba kuma samayn, bal biyaha inta laga qaatay isagoo sidiisa ayaa loo celiyey. waa barakadii nabigeena ilaah subxaana watacaala ayaa u barakeeyey, waa u ku tufay, ilaah ayaa u barakeeyey. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wanaag kaliya uu sameeyey waxay ahayd inuu mar kale isugu daray uu siiyey wax haweeneydaas micnihii ay jid isahay kasii dhigato ayuu siiyey.
wahaakada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaad ogaanaysaa ninkii micnihii xadiidkii ninkii ku kaadiyey masaajidka nin reer baadiye ayaa masaajid ku kaadiyey. nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ayaa kusoo kala carartay fasajaruuh. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam daaya, sababtoo ninka kaadida lagu kala gooyo, ninkan waa nin reer baadiye ah, waxba ma kala oga, masaajidka dhibaatooyin iyo waxba ay u geysanaya oo ku kaadiyey, ma banaana masaajidka in dhibaatada loo geysto. nabiga calayhi salatu wasalaam waa gaal, waa dhibaato, waa munaafiq ma dhihin, bal ayagu ka celi wuxuu yidhi faraha ka qaada kaadii ha dhamaysteen. kaadi marka uu dhamaystay kadib nabigeena calayhi salaatu wasalaam muxuu sameeyey? waa u yeero wuxuu yidhi walaalow masaajidkan loogama talagelin wax wasakha, waa inamaa waxaa looga talagalay in lagu cibaadaysto, tasbiix iyo takbiir ayaa looga talagalay. gacmaha ayuu kor u qaaday wuxuu yidhi ilaahayo, ninkii reer baadiye ah wuxuu yidhi ilaahayo anigii maxamed keliya naga tag yidhi oo nadaa, yani intaan kale baabi'i. nabiga ayaa kusoo laabtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ya akhi alcarab, ilaahay subxaanahu watacaala raxmatuhu waasica, maxaad isugu soo yaraynaysaa dadkao dhan ma u duceysid uu yidhi. wahaakada kaana nabiy sala allahu alayh wasalam, xasan iyo xusein oo dushiisii saaran salawaatu llahi wasalaamu calayh, isagoo salaada ku jira ayay dushii ka saaran yihiin. wuxuu u rifqinayaa oo u naxariisanayaa inuu markaysaa u diido in kor uu usoo kaco carruurta ayaga ah. wuxuu yidhi halkiis ayuu ku sugnaaday, saxaabi ayaa fiiriyey, wuxuu arkay inay dushiisa ku cayaarayaan. mar dambe ayuu sheego salawaatu llahi wasalaamu calayh, wuxuu yidhi labadaydan wiil ayaa dushaydii saaraa, waxaan diidanaa ayagoo micnihii cayaartoodii dhammaysan inaan micnihii kasoo kaco ayaan diidanaa. sidaas ayuu ahaa salawaatu llahi wasalaamu calayh. dhabarkiisa ayuu saari jiray. waxaa sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabar yar oo awow u yahay in micnihii u xambaaray oo oynaysay oo dhulka u dhigayay uu qaadayay. waxaa sugnaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid ka sugan wuxuu yidhi salaada soo gaabiya marka ilmaha yarka ay oynayaan, sababtoo hooyada waxaa la og yahay waa ashfaqu nnaas wa arxamu nnaas, dadka ugu naxariiska badan waa hooyo. hadday ilmihii ooyaan oo carruurteeda ay ooyeyso, waxaa laga yaabaa in salaadeedii ay xumaato. saa darteeda nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam salaada ha la soo gaabiyo marka ilmuhu noocaas kale ay oynayaan. imaamyadu waa inay ogaadaan, yani axwaash inay ogaadaan, xaalka imaamku waa inuu la socdo. carruurta markay oynayaan ma aha suurado dhaadheer inuu qabsado, waa inuu soo gaabiyo isagoo waalidka u naxariisanaayo. waxaa ka sugan nabigeena calayhi salaatu wasalaam mucaad radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu la qabaysay micnihii wuxuu la soo dukan jiray, uu la joogi jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam. nabiga ayuu la soo dukan jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh. markuu soo laabto oo qoomkiisa uu yimaado ayaa wuxuu dujin jiray salaada cishaha ayuu qoomka dujin jiray. wiil yaroo dhalinyaro ahaa ayaa maalmaha habeenada kamid ah salaadihii ka furtay, salaadii kaga baxay. markuu salaadii ku dheereeyey waa uu soo baxay, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa loogu dacwooday, micnihii mucaad loogu dacwooday. wiilka salaada markuu kasoo baxay oo salaadii uu ka baxay, wiilkii ayaa loo sheegay mucaadow, wiilka yarka ahaa salaada aad dukanaysa waa ka baxay. wuxuu yidhi waa munaafiq uu yidhi. markaasuu wiilka wuxuu yidhi mucaad waa ogaan doonaa labadeena midka munaafiq ah marka axad alghazawaat, duulamaadka alla subxaanahu watacaala kamid ah markuu yimaado ayuu ogaani doonaa. muxuu sameeyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay? markii la yidhi mucaad iyo wiilka arrintaas ayaa kala dhex martay, wuxuu yidhi afataanu anta ya mucaad, mucaadow adiga ma fidna walaa tahay? yani waa kathiiru lfitna wa siiqat lmubaalaga, ma waxaa tahay fidna wale? dadka markaad duujinayso waxaa kamid ah dad daciif ah, dad micnihii taag daran ayaa kamid ah, wadulxaaja nin arrin micnihii leh ayaa kamid ah, oo si degdeg yani surcaanu nnaas way jireen fi zamani nabi alayh salatu wasalaam. dad waxaa jira salaada markii la dukado allah asalaamu calaykum markuu imaamku yihahdo xaggaasi ka baxa surcaanu nnaas la yihahdaa. xataa salaatu sahwiga ayay sii moogi jireen, kuwaasoo kale kasii bixi jireen. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dadka waxaa kamid ah nin weyn oo daa ayaa kamid ah dadka dukanaya, waxaa kamid ah nin micnihii wadulxaaja arrin leh, waxaa kamid ah nin daciifa oo taag daran. haddaad micnihii dadka dujinayso salaada dadka usoo gaabi, laakiin markaad adigu tahay kaligaa markaad tahay dheere ayuu yidhi. taa micnaheedu ma aha salaaduhu waa micnihii waxay ku xiran yihiin imaamku inuu xawaasha fiiriyo, micnaheedu ma aha salaada cisha aynan la dheeran karaynin. nabigu waa soo arortay calayhi salaatu wasalaam inuu dheereeyey. wahaakada nabigu wuxuu tilmaamay maxaad ugu dujin weyse sabixisma rabbika alaclaa iyo micnihii washamsi waduxaaha, maxaa suuradaha ugu dujin weyse? ibnu kathiir wuxuu tafsiirku ku sheegayaa arrintaas ayadaa salaada maqrib inay ahayd, mar kalena waxaa la sheegay salaada cishaa kadib inay ahayd. intaba ibnu kathiir naftiisa waa uu soo aroorinaya tafsiirkiisa. walaalayaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu ina faray oo naxariis iyo gargaar iyo wanaag in loo sameeyo, mujtamaca loo sameeyo oo loo shaqeeyo, noocana looga shaqeeyo. laakiin marnaba ma soo aroorin in lasgaalaysiiyo, marnaba ma soo aroorin dadka daaqada in laga saaro, marnaba ma soo aroorin in riddo lagu xukumo,
marnaba ma soo arorin in ayagii la dhaco, marnaba ma soo arorin dhibaato in loo geysto. waxaa loo baahan yahay cabsida alla subxaana wa tacaala inay ka muuqato qofka daacigaha isaga inuu yahay qofka ku dayashada mudan oo micnihii alla subxaana wa tacaala xaggiisa looga dayanayo inuu yahay. wa min sifaati lmuttaqiin, sifooyinka ama tilmaamaha ay leeyihiin dadka alla subxaana wa tacaala micnihii ka baqa waxaa ka mid ah, ilahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wasaaricuu ilى makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu walardu ucidat lilmuttaqiin. sifaat lmuttaqiin waxaa ka mid a ilahi wuxuu yihi wasaaricuu ilى makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu walardu ucidat lilmuttaqiin. wanaaga iyo kheerka u degdego alla subxaana wa tacaala uu yihi zakariya wa yaxya aladiina yashkuuna alcuqm wagilat lwalad, dadkii ka sheeganayey dhibaatooyinka haysta caruur la-aan zakariya markuu ku ta'ahuray maryama, ilahi subxaanahu wa tacaala muxuu ku tilmaamay? wuxuu u baryay alla subxaanahu wa tacaala, gacantiisa kor ayuu u taagay dadka xaaraanta iyo baktiga raba inay ka dhergaan. marka dhibaato iyo mustaqbal la-aan kugu dhacdo ama shaqo la-aan kugu dhacdo, cabsida alla subxaanahu wa tacaala dib u fiiri, waxbaa kaasi ah. markay caruur la-aan kugu dhacdo oo mustaqbal la-aan kugu dhacdo, xasuuso xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam. nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, man jacala hamuhu dunya, qofka hamigiisa ka dhiga adduun ka dhigo aan hami kalaba lahayn, hamigiisa adduun keliya ka dhiga adduunya jaceyl, xub adunya wa kiraahiyat lmowt. geeridii waa la nacay, dunidan ayaa loo baahan yahay in la barkado. cagaarkan iyo guryahan dhaadheer ayaa saa loogu jiraa. xub adunya wa kiraahiyat lmowt, geeridii waa laga baqanaya, waa dhimanaysaa, cimrigaaga waa in kooban. waman caasha alfan wa alfayn falaa budda yowma yasiiru ila lqabri. 2,000 oo sano haddii cimri ilaahay uu ku siiyo, maalin maalmaha ka mid ayaad alla subxaana wa tacaala xaggiisa u laabanaysaa. wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum, alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dembi dhaafka xaggiisa alla dembi dhaaf weydiista. wasaaricuu u degdega ilaa makfirati min rabbikum, dembi dhaafka rabbigiina xaggiisa u degdega iyo janno dhul yani ballaceed uu la egyahay samaawaati walard, yaa loo diyaariyey ucidat lilmuttaqiin. kuwa alla subxaana wa tacaala ka baqanaya ayaa loo diyaariyey. zakariya alla u baryay subxaana wa tacaala, markaasuu alla subxaana wa tacaala wuxuu yihi fastajabnaa lahu, waan ka aqbalnay ducadiisii inuu caruur u baahan yahay. waxaa la siiyey yaxya ayaa la siiyey, laakiin ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat, waxay u degdegi jireen cibaadaadka iyo wanaagga, kheyrka ayay u degdegi jireen. wayadcuunana ragaban warahaba, markay cabsida ay jirta iyo barwaaqada, dadka qaar waxaa waye markay barwaaqaysan yihiin alla subxaana wa tacala ay xasuustaan. markay barwaaqada laga baxo waxaad arkaysaa in alla subxaana wa tacaala uu ilo wayadcuunana ragaban warahaba. alla subxaanahu wa tacaala saasuu ku tilmaamay. xilliga barwaaqada lagu jiro oo aad barwaaqaysan tahay caruurta, war yaa anaga naga mid ah maanta isagoo xaaskiisii caruurtiisii dhex joogo, oo isagoo ay la cayaarayaan oo iyaguna ay la cayaarayso, xaaskii ay la cayaarayso, isagana la cayaaraya, caruurtii dhex jooga, naftiisa u sheegay beri inuu dhiman doono. xub adunya wa karaahiyat lmowt, waa halka nabiga u tilmaamay calayhi salatu wasalaam. dunida sidaa loo jecel yahay nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, maalii walidunya, aniga iyo dunida maxaa isaga kaya gal uu yidhi. maxaa iga galay dunida wuxuu ku tilmaamay geed hoostiis la harsado oo laga tago. sidaasuu ku tilmaamay nabiga calayhi salatu wasalaam. cabdullahi ibni cumar markuu u tilmaamaya wuxuu yidhi kun fi dunya kaanaka qariib oo caabiru sabiil wy, war dunidan ha ku fogaan, waxaad ahaataa ayuu yidhi dunida qariibku ahaw. qariibka waxaa la yihahdaa zayd lcaabidiin siduu u tilmaamay, laysa alqariibu qariibu shaami walyamani, ina alqariiba qariib allaxdi walkafani, safrii baciidu wazaadii lam yubaliqunii, waquwatii dacafati walmowtu yadlibunii, waliya baqaaya dunuuba lasta aclamuha wallahu yaclamuha bisiri walcalan. maxaa la yihahdaa qariib? yaa la yihahdaa qariib lama yihahdo qofka diyaaradaha saaran oo dunida u kala gooshaya oo maalinba meel inta iska tago kaarkiisa wata, kaa qariib ma aha. ninka bangiga fiisa kaarka ka wato ama master kaarka wato oo meesha doonaba lacagta kala baxay, kaa qariib lama yihahdo. wainama qariib waxaa la yihahdaa ninka laxad kala dhidi, ninka safarka isaga kala gooshaya micnihii yeman ilaa iyo markaysa sham, kaa qariib lama yihahdo. laakiin qariib waxaa la yihahdaa qofka keligiisa godka la dhigi doono oo keligiisa looga soo tagi doono. nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, marka qofka qabriga la dhigo watawalla canhu asxaabu, reerkiisii iyo saaxiibada ay ka jeestaan, wuxuu maqlayaa qaracana calayhim, shanqirta kabahooda ayuu maqlayaa, laakiin ma hadli karaayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi walaakin hadda ayaa la weydin doonaa, malag ayaa u imaan doono, waxbaa la weydin doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala u baryay inuu sugu yidhi. wa min mukhaalafaat waxaa ka mid ah cabsi la-aanta alla subxaana wa tacaala aan meeshan ku aragnay. qabuurtii ayaa la dul taagan yahay, taleefono, qof markii uu dhinto waxaa arkaysaa nin waliba taleefonka ku dhegan yahay, qof waliba waa uu quslaya, qof waliba waa u sheekanaya,
qof waliba dunidii uu ka sheekeen saaxiibkiisa iyo xaaska iyo wixii telefonka dhigta lagu wada haya. qaar baaba sigaar ku cabaaya indheheenna ku aragnay sigaar. war ilaahay ka baqa subxaanahu jalla wacala. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam qabuurta waxaa la nahiyey in dabka loo qaato. qabuurta waxaa la nahiyey in kabaha lagu dhex socdo. yaa saaxiba sibtayni ikhlacna calayka faqad aadaytu nabi alayh salaam. sibtayn waxaa la yihahdaa kabaha dhogorta leh oo lagu socon jiray. war ninkaagan kabaha noocaas wato iska siib dadka ayaa dhibtu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam. nabigu wuxuu yidhi mararka qaar mukhaalafada dhacda waxaa ka mid ah qabrigii naftiisa waxaa aragn inaan lakala aqoon madax in laga hormarinaayo in wax la hormarinaayo. war axkaamta barto ilahi subxana watacaala ka baqa. qabrigii dadka waa la geynaya lagama warqabo axkaamtii lama yaqaano. nabigu wuxuu yidhi man qaara fi imra'atuh qofka xaaskiisa u galmooday oo wax sameeyey ha ka dheeraado. dad mararka qaar waxaa dhacaysa qof macnihii haweeney uusan ehelkeedii ahayn ayuu wuxuu jecel yahay jirkeeda inuu qaqabto oo dhulka uu dhigo qabriga uu dhigo. wuxuu ilaawayaa marka maxaa la sameeya tashiic ayay sameeyaan. qabriga markii lasii socdo waxbay akrinayaan laa ilaaha ila allah muxamed ma soo aroorin nabiga kama aroorin waana bidca. waxaa loo baahan yahay qofka muslimka axkaamta inuu barto. qabriga dhulka markuu dhigaayo qofka bismi illaahi wa calaa millati rasuulillah intaa waxaan ka ahayn nabiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam. sigaarka ayaa lagu cabaaya waa nahyi. kabihiyaa lagula dhex socdaa haddaysan qoyaan iyo baraf iyo dhibaato jirin waxay ahayd asalku in laiska bixiyo ee soo nabigu u tilmaamay alayhi salatu wasalaam. qabuurta dushoodaa la taagan yihi. telefoonadiyaa dhegta lagu haya adduunkiyaa looga sheekeen kafaa bilmowti waacida. geerida ayaa kugu filan wacdi uma bahnid haddaad aragto qof dhintay oo lasii wado haddaad aragto kaasaa kugu filan. saa darteed markay baryeen alle subxaanahu watacaala muxuu ku yidhi zakariya markuu alle subxaanahu watacaala uu yidhi fastajabna fa'du waa bin tacqiib sariix si deg degaa lagu aqbalay. waxaa la mid ah wadanuun markii isagoo caraysan uu baxay ee uu maleeyay alle subxaanahu watacaala inuusan wax u qadaraynin fanaadaa fi dhulumaati an laa ilaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min adaalimiin. war ilaahi subxaana watacaala ka baqo haddaad mustaqbal u baahan tahay isaga weydiiso. 3 mugdiyaal gudahood isagoo ku jira ayuu alle subxaana watacaala uu baryay. mugdiga koowaad waa habeen micnihi waa la tuuray badi oo mugdi a gudaheed ayuu ku jiraa. waa habeen badi mugdi gudaheedna waa ku jiraa. baalka xudka la yihahda kalluunka ama malayga calooshiisna waa ku jiraa. 3 mugdiyaal dhexdood ayuu kasoo qayliyey allaa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min adaalimiin. ilahay muxuu leeyay fastajabnaa lahu waan ka aqballu yidhi tacqiibu sariic si deg dego alla subxana watacala ugu aqbalay. nuux calayhi salaatu wasalaam daacigii adduunka ugu dheeraa. dadka ducaadka qaara waxaa laga yaabaa wuxuu rabaa inuu masaajid meesha uu joogo 2 maalin dadka marka wax u sheega maalinkii saddexaadna dadkii o dhan wuxuu rabaa inay toosaan. wuxuu rabaa dadkii o dhan inay wada islaamaan. dadkii o dhan inay micnihii magaaladii u joogay inta gaaloo joogto o dhan ayaa wuxuu rabaa inay islaamaan. kuwii muslimka ahaana tashadudkiisa iyo quluwiga isaga ku jira ayaa masaajidkii looga baxaya. wuxuu yidhi markuu alle subxaana watacaala 950 sano dadku uu baryayay wax raacay male bal wuxuu tilmaamaya wastakshaw thiyaabahum dhigaha ayay farta gashteen dharkoodii iyo faraha inta soo qaatay dharkaa gashteen way isweynaysiiyeen. rabbi innii dacawtuhum jihaara ilaahayow anigu waan u dhawaa waan u yeeri habeen iyo maalin ayaan u yeeri jiray way micnii ii haaneysteen uu yidhi ilaa marka dambe nabiga naftiisa u yidhaahdo rabbi inii maqluubun fantasir fafataxna abwaab الsma bima'in munhamir wafajarna alardu cuyuuna faltaqa almahu cala alabri qad qudir waxamalnahu cala dati alalwaaxi wadusr ilah yidhi. bal u fiirso daaci 950 sano dadka ugu yeeraay wax raacay male. 16 ayay bacd culamaa sheegeen intaas ay raaceen. waxaad ogaataa wiilkiisa naftiisa ayaa ku dhintay suurati huud alla subxaana watacaala uu micnihi ku tilmaamay kufri iyo gaalnimo ku dhintay. wiilkiisaa ku dhintay. waxaa kufriga ku dhintay luut calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa sida alle subxaana watacaala qur-aanka inooga caddaynayo. adiga waxaad doonaysaa hal maalin keliya inay dadkii o dhan wada toosaan oo manhaju salaf saalix wada qaataan oo ayagoo dhan ay naqdaan dad salafiyiin ah maasha allah. laakiin waxaad u baahan tahay sabr iyo inaad ogaato waxa nabigan u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. nabiga wuxuu yidhi nabi ayaa imaan doona maalinka aakhiro waxaa la socda hal qof oo keliya. nabi kale ayaa imaan doona waxaa la socon doona 2 qof oo keliya. nabina 3 ayaa la jirta nabina wax la socda bal yidhi nabi alayh salaam. u fiirso nabi dhan oo ilaahay subxaana watacaala uu soo diray ayaa wax la socda jirin wax agtiisa taagnaadi jirin oo keligiisa socda. dacwadani waxay u baahan tahay in macnihii dadka muslimiinta ah si yacnihii rifqi iyo naxariis iyo wanaag looga sheego. wasaaricuu u degdega ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaati waalardu uciddat lilmuttaqiin. kuwa loo diyaariy muttaqiintu yay yihiin kuwa alle subxaanahu watacaala uu tilmaamayo. alle subxaanaه watacaala waa uu tilmaamay wuxuu yihi uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wadaraa. waa kuwa xoolahooda baxinaya marka dhibaatada ay jirta iyo barwaaqada.
labadaba xoolahooda way qariyaan walkaadimiin alghayd caradoodana way micnihii qarsadaan adigoo argudan karaya caradaada inaad qarsato walcaafiina can innaas dadkana iska cafiyo wallahu yuxibu lmuxsiniin aayadana bacd alqisas ayay bacd culamaa sheegaan waladina ida dakaluu faaxishatan waladina ida facaluu faaxishatan oo dalamuu anfusahum waa kuwa marka ay micnihii sameeyaan waladina waa kuwa idaa facaluu marka ay sameeyaan faaxishatan ay sameeyaan oo dalamuu anfusahum ama naftooda ay dumiyaan dakaru llah ilahi subxaana watacala xasus waa kuwaas kuwa mutaqiinta calaamadahaasoo dhan ayuu alla subxaana watacaala bimacnaa ku imaanaya muxuu alla subxaana watacaala ku amaanin kuwaan ayaga wasafahum allah subxaanahu watacaala alinfaaqi fi lcusri walyusr inay xoolahooda marka dhibaatadii jirta bixin jireen walkadim alghayd carada inay qarsin jireen walcaafiina can innaas dadku inay iska cafin jireen walmubaadarati litooba walistikfaar inay micnihii u degdegi jireen toobada iyo istikfaarta inay u degdegi jireen laa tas'alana bunaya aadama xaajatan wasl aladii abwaabuhu laa tuxjabu allahu yaqdabu in tarakta su'aalata wa bunaya aadama xiina yas'alu yaqdabu ogow waxa aad baryayso oo aad baryayso waa sida nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibni cabaas uu baray idaa sa'alta fas'al illah haddaad wax weydiisanayso ilahi subxaana watacaala weydiiso wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib adcuunii astajib lakum ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyay barya ilahi subxaana watacaala bari sheekh hebel iyo weli hebel waxba ku siin maayaan walaalayaal ahmiyada ay leedahay taqwada alle subxaana watacaala waxaa ka mid ah ilahi subxaana watacaala dadki ummadihii annaga naga horreeyey ayuu u dardaarmay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an itaquu llah ilahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay walaqad wasaynaa waxaan dhaba inaan u dardaaranay ummadihii adinka idinka horreynay qad macaani badan ayay faa'iideysaa laakiin qad kaligeed haddaad micnihii gooni micnihi u macnayso waxaad ogaanaysaa naxwaha nooc baa waxbaa kaa qaldan qad micnihi macnaheedu wuxuu ku dhacaya wasayna ayuu ku dhacaya walaqad wasayna waxaan u dardaaranay walaqad xaqiiq wasayna waa u dardaaranay waa micnihii naxwo ahaan waa la fahmi waa dhihi karaysa laakiin waa qalad alla subxaana watacaala wuxuu leeyay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaan dhaba inaan u dardaaranay dhab ahaan waxaan u dardaaranay ummadihii adinka idinka horreeyey iyo adinkaba dadka ahli kitaabka ahaa waxaan u dardaaranay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba kuwa kitaabka la siiy oo min qablikum idinka horreeyey an itaquu llah alla subxaana watacaala inay ka baqaan sidaas ayaan micnihii aan u dardaaranay taqwa allahi subxaana watacaala kafa danuuba sagiiruha wa kabiiruha daka tuqa dadka qaar ayaa dunuubti yaraysta dadka qaar ayaa dunuubti waxay micnihii u sameeyeen wax yar wuxuu leeyahy waan ka toobad keenaya waxaas waan samayn doonaa waan dukan doonaa waa ku dhimanaya noocaas oo kale dunuubta mideeda yar iyo mideeda weyn ba isaga fogow kafa danuuba sagiiruha wa kabiiruha daka tuqa cabsi waxaa la yihahdaa qofku inuu dunuubta mideeda yar iyo tan weyn intaba isaga tago wacmal kamaashi fawqa arda shawk waxaad samaysada nin micnihii ku soconaya sida dhul qodxaan oo kale muxuu samaynaya waa ka digtooya qodaxda inay muddo dhul qodxaanle markaad ku soconayso waxaad ka baqanaysaa qodaxda inay ku muddo waxaad ka baqanaysaa qodaxda inay ku muddo saas oo kale alla subxaana watacaala inaad kaga baqdo sida qodaxda isaga ilaalinayso kale alla subxana watacaala uga baq kafa danuuba sagiiruha wa kabiiruha daka tuqa wacmal kamaashi fawqa arda shawka yaxdara maa yura laa taxqirana sagiir ina aljibaali min alxasa buuraha ad ujeedo wax yar bay kima dunuubta qaar oo la leeyahay mar un baan waxaa sameeyey keligood ayagoo ayay guryo keligooda degan yihiin qofkii alla subxaana watacaala aan ka baqanayn dunuub badan ayaa laga yaaba inuu ku dhaco cabsida alla subxaana watacaala waxaa ka mid ah walaalayaal alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kulu nafsi ma kasabat wahum laa yudlamuun cabsida alla subxaana watacaala waxaa ka mid ah ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsun ma qadamat liqad war alla subxaana watacaala ka baq berito waxa kaa horeeya fiiri nafi waxay hormarsatay berito ha fiiriso alla subxaana watacaala uu yidhi waxaa kaloo la mid ah cabsida alla subxaana watacaala qur-aanka alla subxaana watacaala laisku hadiyey oo lais siiyo sida alla subxaana watacaala qur-aankiisa uu ku sheegay alla subxaana watacaala saasoo kale wuxuu sheegay dadka mutaqiinta ah ina almutaqiina fi janaatin wa cuyuun aakhidiina ma aataahum rabuhum inahum kanuu qabla dalika muxsiniin kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun وبالأسحاar hm ystغfiruun وفي أمwaalihim xaq للsائل والمحروم وفي الأرضi آياaت للموqiniin وفي الأرضi آياaت للموqiniin وفي أنfusiكم أflaa تbsiruun فورب السماء والأرض إنه لxق مثل ma أنكم تنطقون alla سبحaنه وتaعالى uu yihi alla سبحaanه وتaعالى wuxuu leeyahy in المتقيina kuwa alla سبحaanه وتaعالى ka baqay في جanaatin ayay leeyihiin iyo وcuyuun آkhidiina ma aataahum رabهم beero dhul alla subxaana watacaala ugu talagalay ayaa jira dadka muslimiinta oo alla subxaana watacaala ka baqay laakiin markaad dunida joogtod xaaraamtii
aad micnihii xalaalsato waxa alla subxaana watacaala kaa celiyey waxaad ogaanaysaa macaasida la sameeyey darteed qofka muslimka inuu naarta ku gali karo. shafeecada ba helaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa arrin kale. qofka muslimka oo shahaadada ku dhintay oo alla rumaysan subxaana watacaala macaasi uu sameeyey darteed un ku galay haddaysan shirki ahayn maa cadda shirk, nabiga calayhi salaatu wasalaam shafaacadiisi waa uu helaya. waxaa kaloo lamid a walaalayaal alla subxaanahu watacaala dadku uu tilmaamay alla subxaana watacaala dadka uu tilmaamay waxaa kamid a dadka muxsiniinta ah. dadka muxsiniinta waxaa kamid a alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay ina allaha maca aladiina ataqow. alla subxaana watacaala wuxuu macoodii u yahay maciyat llahi subxaanahu watacaala kuwa alla subxaana watacaala ka baqay, waladiina hum muxsinuun waa kuwa wanaaga iyo samafalka sameeya, waa kuwa dadka muslimiinta axwaashoodii fiiriya. ma aha micnaheedu dabaq weyn inaad dhisato hoostaadina ay taagan yihiin dad masaakiin oo sifir ah. waa sidaa xaaladu u badan tahay maanta. guri waxaad arkaysaa dadkii ku noolaa qashinka ay ku darayaan raashinka. guri waxaad arkaysaa dadka hoostoodii deganaa ay yihiin dad fuqaro ah oo habeenkaas iyo maalinkaas aan qada helin dhaxadii ku dhacayso. damiirka siinaya muxuu yahay qofka muslimka inuusan kuwa ayaga hoostoodii jooga oo dhibaataysa inuusan waxba siin. waxaad arkaysaa dadka muslimiinta mararka qaar naxariistii iyo raxmadii in laga tegey. nabigana wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haweeney ka mid ah haweeney micnihii dumarka xun ka mid ahayd ay waraabisay darteed inay micnihii ku mutaysatay jannada alla subxaana watacaala. waxaad arkaysaa eeyihii markaad tagto xamar oo kale iyo soomaaliya markaad tagto waa la daba taagan yahay, waa la ceerinaya, waa la dilaya, waa la dhibaataynaya. biyihii isagoo carabkii banaanka dhigay oo micnihii ooman ayaa dhagax looga daraya. asna qofkaan awoodin waxaan waa xayawaana faraha ka qaad. xayawaanku hadduusan ahayn kuwa dadka dhibaatada ku haya ma banaano ogow in la dilo. xasharaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay way jiraan oo uu yihi meel alla meesha la joogo xaramka iyo banaanka inta meesha lagu dilo waa kuwa dadka dhibka ku haya kuwa ayaga ah. laakiin xayawaanka dhibaatada kuga haynin eyga haddii uu yahay ey micnihii isfiilita qaba oo dadkii conaaya oo dhibaataynaya waa la dili karaya. laakiin tamthiil laguma samayn karo, lama jarjari karo suu nabigana u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. kaa naftiisa ala diiday in la jarjaro hilibkiisa. maxaad u balaynaysaa yani xayawaanka banaanka iska jooga dhibaatada badan lagu hayo nabiga waa u nahiyey calayhi salaatu wasalaam. saa darteed bisada bahashan mukulaasha la yidhaahdo haweeney inta micnihii qof inta soo qaado guri ku dhex xiray oo ka celiyey in xasharaadka iyo wixii ay banaanka ka cuni lahayd naarta ayuu ku mutaysay si uu tilmaamay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. markaasuu markii la weydiiyey nabiga waati u lahaa calayhi salatu wasalaam beer weliba oo qoyan ajir ayuu leeyahay nabigeena calayhi salatu wasalaam. waxaad ogaanaysaa cabdullahi ibni cabaas markii la weydiiyey sadaqada qof gaal ah qof dhibaataysan wax ma la siin karaa, wuxuu tilmaamay ha hadduusan ahayn qofka isagaa qof muxaarib ah oo gurigiina micnihii dagaal idinkula jiro oo idinka soo saar hadduusan ahayn wuxuu sheegay in la siini karaayo. marka saa darteed waxaa banaan qofka muslimka ah beer walba oo qoyan ajiruu leeyahay, ama gaal ha ahaado ama islaam ha ahaado. qof dhibaataysan oo gaajo iyo rafaad haya dad aragto way ku banaan tahay inaad siiso. ma aha inaad tirahdo waa gaal waxa uma siinaya hortiisa usii dhinto. haddii halkaa uu taagan yahay waad siini karaysaa, xayثa insaaniya ayaad usiinaysaa adigii ajar subxana watacala bimacnaa uu kaa siinaya. laakiin isaga wax uu kaa qaatay ajar bimacnaa kuma helaayo. su-aalaha ugu badan waxay naga soo gaaraan oy ka yimaadaan sheekh jimcaha ma imaani karaayo, jimcaha ma dukini karaayo, jimcihii dhib badan ayuu igu hayaa, salaadii jamaacadaha ma soo xaadiri karaayo, shaqaan ku jira. waxaan rabaa halkaas inaan ku jamciyo jimco weliba inaan micnihii salaada caadiga aan dukado. waxaa arrintaas ayada ah keenay qofka micnihii ii xukuma qofka madaxda ii ah ayaa diidan salaadihii inaan aado. culamada islaamka waxay leeyihiin haddii salaadii lagu diido oo aynan marnaba suurtagal ahayn salaadii inaad dukato ood meeshii aad ku dukato salaad meesha ku dukan hadii lagu yidhaahdo waa in la isaga taga camalka isaga ah. waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib. wayaqulu nabiy sala allahu alayhi wasalam low tawakaltum cala allahi xaqa tawakulihi haddii alla subxaanahu watacaala talada u dhiiban lahaydeen si dhabbaad isugu dhiibin lahaydeen la razaqakum kama yarzaqu طayr. shimbirta ma waxay meel ku og tahay buulka waxay ka baxdaa waxaa la yihahda waa arxamu lumma la yihahdaa hooyada ugu naxariista badan marka bini aadamka laga soo tago. sababtoo ah intay caloosheeda wax kusoo qaado ayay buulkii timaadaa ayadoo maalinkii o dhan raashin raadinaysay afkii xayawaankii yarka aan waxba cuni karaynin oo indhihiisa isku xiran yihiin intay kala qaaday raashinka ugu ridaa si uu raashinka u cuno buulkaasu ku jira ilaa uu ka weynaanayo. taas oo kaleu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam
haddaad xaq si dhaba alla isugu dhiibi lahaydan ogow khalal caqiida ayaa kugu jira. marka lagu yihahda salaada ha dukan, jalbaabkana ha qaadan, aad tirahda waayahay halkayga iska joogaya, cishaha marka la tago oo shaqada aan ka baxo kadib guriga markaan tagaan ku dukani doonaa. khalal caqiida kugu jirta, dib isu muraajace, adiga dib isu fiiri, dib isu akri. kalsoonida alla subxaana wa tacala aad ku qabtaa xun, tawakalkiyaa kaa maqan. waxaad ogaanaysaa ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman yataqi llaha yajcal lahu makhrajan. ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waman yataqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra. arrintaada alla subxaana wa tacaala kuu fududaynaya. bini aadamka irsaaqdaada kuma xira ogow. irsaaqdaadu markaad dhalanayso alla subxaana wa tacaala uu soo qoray. meel alla meeshaad koob biyaha ka cabayso way qoran tahay, meeshaad raashinka cunaysana way qoran tahay. bini aadan gacantiisa kuma jirto, ilahi subxaana wa tacaala weyn gacantiisa ayay ku jirtaa. war alla ka baqa subxaanahu jala wacala. shaqada noocaas oo kale ilahi subxaana wa tacaala dartiisa ugu tag, adigoo ilaalinaya diintaada iyo sumcadaada ilaalinaya. ma aha in lagu ihanisto. xaqayaad u leedahay kuwa sigaar kacbo daqiiqada ayay ku dukadaan. alla ka baq subxaana wa tacala, ilah ka baq. waxaa kaloo lamid ah walaalayaal, nin waxaa jiray ka baxay jaamicat lazr qadiiman, qari yar oo isaga micnihii u dhashay qaridiisu, wadahaba ilaa qaryatihi wajalasa fi amaami beyti, guriga hortiisuu fariistay. wa kana mahmuum, mara calayhi waaxid, nin reer baadiya ayaa hortiisa soo maray, fasalama calayh, markaasuu asalaamu calaykum ya fulan. ninkii jaamacada ka soo baxay wahuwa azhari, radda calayhi salaam bisawt lkhaafid, wacalaykum asalaam, sidii ninkaa jeesano salaanta micnihi ugu celiy ninkii hortiisa soo maray. wuxuu ku yidhi maalka ya akhi fulan, maxaa kugu dhacuu yidhi, maxaa salaantiiga celin micnihi iga radin weysay. markaasu wuxuu yidhi ya akhi ma fi camal, uu yidhi shaqo ma haystuu yidhi, mutaqarrid fi ljaamica, jaamicadan ka soo baxay shaqana ma fi camal. markaasuu wuxuu yidhi haddii shaqlaan ay dhacdo ilah ma jira miyaa ku irsaaqa yidhi, ilaahay adiga irsaaqa kuu qora aawu yidhi, kii badwigaasaa dhahay. markaasuu wuxuu yidhi wallahi dib ayaan isuga laabtay, waxaan ogaaday caqiidadeed inay kharbaan tahay. waxa intaasoo sano aan soo baranayay waxaan ogaaday inay wax qaldanba yihiin, inay caqiidadeeda kharbaan tahan ogaaday, dib aan isuga laabto yidhi. waayo ictimaadii cala allahi subxaana wa tacaala, alictimaadu cala allah, ilahi subxaana wa tacala isu dhib, isaga ictimaad, isagaa waxba gacantiisa ku jiraan bini aadan maya. nin micnihii nin shaqaala la shaqaynaya beri, ninkii mudiirka ahaa iyo kuwii la shaqaynaya ayaa u yimid, ayagoo raba inay la kaftamaan. markaasa waxay ku yidhahdeen khalaas shaqada waa kaaga dhamaatay, alaabtaada qaado. ninkii oo shaqadiisa ku jiro sanooyin shaqaynayay. markaasuu yidhi ma saas ahaa, khayran insha allahu yidhi, alaabtiisuu qaato waa u tegi. markuu jidka sii socday ayagii kafta unbay keed waxay warniya waan kula kaftamayna raalli ahaw, shaqaalaha meeshaa ninka ugu wanaagsan mayuu yidhi aniga irsaaqadeeda agtaada ma taalo ilahi subxaana wa tacala. warniyo wuxuu yidhi waa lagulka ma jirto yidhi, wallahi wuxuu yidhi wadactu lfaqra bidaka alyawm, uu yidhi maalinkaa iyada ayaa igu dambaysaa faqriga wadaac aan sogootiyey, maalinkaasa igu dambaysa faqri daba ma arag. yidhi limaada ictimaaduhu cala allah subxaana wa tacaala, ilahi subxaana wa tacaala ayuu isu dhiibay irsaaqda. huwa razaaq, huwa almudabir, huwa alkhaaliq, allah subxaana wa tacaala waa ilaah subxaana wa tacaala koomkan dabira oo kala wareejiyay habeenkii maalinka kuu keenay. waa ninka caloosha adoo ku jira 40 maalmood adigoo micnihii maxaad ahayd, waxba ma ahayn cadam. ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy hal ataa cala linsani xiinu min adahri lam yakun shayan madkuura, ina khalaqna alinsana min nutfatin amshaajin nabtaliih fajacalnahu samiican basiir. waxba ma ahayn laba biyo oo laisu geeyey min maain daafiq yakhruju min bayni sulbi wataraa'i, laba biyo oo laisu geeyey inbaad ka dhalatay. 40ka micnihii dib adiga isu fiiri, 40 maalmood marxalada aad soo barta fiiri, candhuuf yar, waslad yar, xinjir yar, waxaad dhici karaysa inuu ilaahay awoodo inuu kusoo tuuro. laakiin banaanka markaad timid oo 100 kiila aad naqatayna ilahi subxaana wa tacala waad caasisay. rabbi subxaana wa tacaala ayaad xukunkiisa diiday, rabbi subxaana wa tacaala ayaad u dukan weysay. waxaanad ogeen oxygenka aad neefsanayso hadduu maraykan kaa iibin lahaa lacag badan u noqon lahaa. laakiin cidiyaasha waad jaraysaa, cidiyaasha markay kuga baxaan waad jartaa, ilkuhu markay soo baxaana lama jaro. ilahi subxaana wa tacala halkoodu amar ku siiyey. ogow neefsiga aad neefsanayso cibaadada alla subxaana wa tacala waa lagaga baahan yahay. nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, qof walba oo muslim ah 360 xibnood oo jirkiisa ku taala ayaa micnihii u baahan in micnihii markaysaa ay maalinkii camal sameeyaan. intaa ayaan ku ekeenayna haddii alla subxaana wa tacala uu yihahdo wa subxaanaka allah wa bixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk.